waxaynu maanta bilaabi doonaa taxanaheena cusub ee IELTS-ka ama imtixaankan IELTS-ka oo aynu step by step idinku soo bandhigi doono sidaad u diyaarin kartaan. Haddaba imtixaankan IELTS-ku waa maxay? IELTS-ku horta wuxuu u taagan yahay waa International English Language Test System. Marka waa imtixaan caalami ah oo loogu talagalay ardayda galaysa examkan. ardayda doonaysa inay bilowdo bachelor degree ama master's degree oo ay wadamada dibadda ay kasoo dhigtaan. Sababta aynu ugu baahannahay inaynu galno imtixaankan waa maxay? IELTS-ka waxaa u baahan inuu galo qof kastoo doonaya inuu wax ka barto oo safro ama uu ku noolaado wadamada afka Englishka lagaga hadlo. That's why it is important ay aad muhiimka ugu tahay in imtixaankan aad diyaariso intaanad tegin ama marka aad tagto wadamada dibadda. waana caqabada badanka Soomaalida soo wajahda ardaydeena Soomaaliyeed. Sidoo kale waxay isticmaala jaamacad kastoo doonaysa inay ogaato halka ay taagan tahay luqadda Englishkaagu. Scholarshipska loo isticmaalaa iyo jaamacadaha badankooda ayaa la weydiiyay ardayda shahaadada. So waa challenge haysta ardayda dhammaantood. waxaynu bal si yar oo fudud aynu u dul istaagi doonaa skill kasta iyo imtixaankan muxuu yahay iyo wax kasta oo ku saabsan. haddaba imtixaankan laba qaybood uu kala qaybsamaa waa academic IELTS iyo general IELTS. marka focuskeena wuxuu noqonayaa academic maadaama aynu academic nahay oo aynu doonayno inaynu academic aynu diyaarino. academic waxa weeyaan kii jaamacadaha lagu galayay, kii scholarshipyada lagu xareysanayay, wax kasta oo ku saabsan academiga. generalku laakiin waxa weeyaan waa kii iska generalka ah. haddaba qaabka imtixaanka loo galo waxa weeyaan laba qaab. waxaana marka qaarkood lagu galaa computer based iyo mar paper based uu yahay. marka uu paper based yahay, writing-ka iyo reading-ka iyo listening-kaba waraaq baa lagu dhiibayaa kaasaad ka shaqeynaysaa. laakiin markuu computer based yahay, writing-ka iyo reading-ka iyo listening-kuba waa computer based, sameecada lagu dhiibayaa marka ka bacdi halkaasaad ka dhageysan doontaa. ma garanaysaa halkaas ka shaqeyn doonta. Speaking-ka waa isku mid labadoodaba. Speaking-ka waa isku mid. haddaba qaybaha imtixaanku waa 4 skill uu noqonayaa. Reading-ka oo aynu gaar u dul istaagi doono. Reading-ka oo ka kooban reading-ka waxaad galaysaa 60 minute, wuxuuna ka kooban yahay 3 passage ama 3 qoraal oo dhaadheer oo su'aalaha ku xiga aad ka jawaabi doonto. mar walba waxaan dul istaagi doonaa reading-ka skill-kan sidee ma garanaysaa aad u waajahi kartaa passage kasta iyo su'aal kasta kaaga timaada. 3 passage-na waxaad u kala qaybsan kartaa 60 minute oo 20 minute baa midkiiba kusoo beegmaysaa. Writing-ka oo kale waa 60 minute. Writing-ku wuxuuna ka kooban yahay 2 qaybood, waxaana la kala yidhaha writing task 1 iyo writing task 2. 20 minute ayaad task 1 kala siinaysaa maadaama uu ka yar fudud yahay. waynu dul istaagi doonaa writing-ka laftarkiisa ayaynu dul istaagi doonaa. 40 minutes oo kale writing task 2 gaad siinaysaa. Speaking-ka oo kale isaga laftarkiisa waa 14 to 11 minute. marka 3 qayboodna uu ka kooban yahay. Listening-ka oo kale speaking-ka laftarkiisa skills-ka saa loo garanaysaa saad u horumarin lahayd speaking-kaaga, sidaad ma garanaysaa aad u dul istaagi lahayd baynu eegi doonaa. Listening-ka oo kalena 4 qaybood buu ka kooban yahay. 40 minute waa la galaa. haddii aad computer ku galayso waxaan filayaa inuu yahay meelaha 30 minute. 30 minute-ka 2 minute oo kaliya ayaa lagu darayaa oo aad answers-kaaga kusoo gudbin karta maadaama computer based yahay. markuu computer based yahay, laakiin marka uu paper based yahay waa 40 minute-ka 10 minute ba answers-ka aad check garaysanaysaa. 30 minute-na waa exam-ka ayaad geli doontaa. marka sababtaan ay idinku soo gudbinayaa exam-kan waxa weeyaan maadaama anigu dhowr jeer hore u galay baalkana challenge-kiisaan ogahay. although aanan saa waxba idinku dhaamin, haddana waxaan doonayaa inaan waxaa idinku dhaamo idinla share gareeyo si aad ma garanaysaa aad u keeni lahaydeen waxa aad rabtaan ama skill-ka intaad doonaysaan inaad ka gaadhaan. so insha Allah tacaala waxaynu dul istaagi doonaa step by step. dhowr jeer horaan galay, mar B2 waan keenay, mar C1
anyway imakada laftarkeyga inaan mar labaad galaa suurtagala ama mar kalaan haddaan u baahdo, laakiin muhiimad waxay tahay in ma garanaysaa waxaan uu yahay skill oo aad awoodda saarto skillka oo aanad iskaga dhigin wax aad u sii weyn. aad baad mahadsantihiin, la socda taxaneynan insha allahu tacaala. skill kastana gaar baynu u dul istaagi doonaa, video badan oo soo gudbin doonaa insha allah.